madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya oo socdaal shaqo ku jooga dalka Talyaaniga ayaa waxa uu kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dhinac. Wariyaha Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajiro ayaa warkan nooga soo diray magaalada Rome ee caasimadda Talyaaniga. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo booqasho rasmi ah ku jooga wadankan Talyaaniga gaar ahaan magaalada caasimadda ee Rome ayaa waxa uu maanta kulan la qaatay ra'iisul wasaaraha wadankani Giuseppe Conte ayadoona labada dhinac ay ka wada hadleen xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya Talyaaniga iyo waliba Soomaaliya. intii uu kulanka socday ayaa ra'iisul wasaaraha wadankani Giuseppe Conte waxa uu ballan qaaday inuu Talyaaniga hormuud u noqon doono caawinta dalka Soomaaliya isla markaasna Talyaaniga iyo Soomaaliya ay wax badan wada qabsan doonaan ku aadan dhinaca xiriirka ganacsiga. wasiirka arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo qayb ka ah kulanka ay qaateen madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha wadankani ayaa saxaafadda la hadlay asagoo sheegay in wax badan laga wada hadlay. wasiirkana waxa uu yiri madaxweynaha waxa markii ugu horeysay lagu soo dhaweeyay salaan sharaf oo iyadoo la saaray calanka Soomaalida iyo calanka Talyaaniga intaba kabacdina madaxweynaha wuxuu ra'iisul wasaaruhu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Talyaaniga maxaliyada Giuseppe Conte wuxuu ku soo dhaweeyay xafiiskiisa meeshaas oo ay wada hadal dheer ku yeesheen. mashaariic gaar ah lagama hadlin hadda waxaa lagu heshiiyay in la xoojiyo xiriirka labada dal oo heer kale la gaarsiiyo. wuxuu ra'iisul wasaare Conte qiray in Soomaaliya intii uu madaxweyne Farmaajo la doortay ay maaragtay maxaliyada ay kaalin fiican kaga jirto adduunka Soomaaliya. wuxuu aad u tilmaamay xiriirka geeska Afrika ee soo xoogsanaya soo wanaagsanaya iskaashiga ka jira. gaar ahaan wuxuu dul istaagay heshiiska saddexda dal ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea dhexmaray oo aad u amaanay iyo dabaysha iskaashiga ee gobolka oo dhan ka socota. marka aad ayuu madaxweynaha arintaas ugu amaanay oo uguna tahniyadeeyay. marka heshiisyada la xiriira mashaariic gaarihi waa inuu ka horeeyaa isfaham guud oo xoogan. kaas ayaa maanta suurto galay. waxaa muuqatay commitment ama go'aan dhab ah oo ra'iisul wasaaraha Talyaaniga ka muuqatay inuu doonayo in xiriirka Soomaaliya Talyaaniga aad loo xoojiyo heer sare la sii gaarsiiyo. gaar ahaan sidaan hore u sheegay dhanka iskaashiga dhaqaalaha oo dabcan Talyaaniga laga filayo taageero badan inay gacan fiican ka geystaan. wuxuu kaloo ballan qaaday ra'iisul wasaaraha Talyaanigu mudane Conte in Talyaanigu iyo isagu gaar ahaan ay noqon doonaan uu noqonayo champion ama uu hormuud ka noqonayo dhiska iyo xoojinta dhaqaalaha Soomaaliya iyo oo Yurub dhan iyo adduunkaba uu rabo inuu maartay kaalintaas ciyaaro iyo in isagoo codsaday in Soomaaliya iyo Talyaanigu ay soo cusboonaysiiyaan xiriirkoodii dhaqan dhaqaale iyo waxbarasho ee ka dhaxayn jiray. marka wuxuu ahaa kulan faa'iido badan u yeelan doona dadka iyo dalka Soomaaliya. madaxweynaha intuu uu joogo wadankan Talyaaniga ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankani. Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajiro, warbaahinta qaranka, magaalada Rome, wadanka Talyaaniga. guddiga dib u eegista hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka federaalka ayaa tababar magaalada Muqdisho uga furay shaqaale cusub oo guddiga uu qaatay si xirfadooda sare loogu qaado. wariyaha Maxamed Nuur Shariifka ayaa qodob wareedkan inoo haya. shaqaalaha guddiga la socodka dib u eegista dastuurka ayaa tababarkan waxa uga furmay xarunta guddiga waxa uu soconayaa muddo 2 maalmood ah.
tababarkan ayaa shaqaalaha waxaa lagu barayaa qaabka uu guddiga u shaqeeyo waxa hor yaalla waxaana furay guddoomiyaha guddiga la socodka dib u eegista dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid waxa uu sheegay in qofka shaqaalaha looga baahan yahay qabashada waajibaadka shaqadiisa iyo sidii uu gudan lahaa iyadoo guddiga la socodka dib u eegista dastuurkana laga sugayo hol culus waxaan marka hambalyaa idin leeyahay hawshaas aad ayagoo aynan cidna u marinoon beel iyo qof kale ina marin inaad aqoontiina iyo kartidiina ilaahay iyo nasiibkiina intaa idin siiyey dad badan baa idin la galay oo aan helin fursadaas marka fursadaas hambalyaan idin leenahay midda labaadna waxaan idin leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada shaqada ku soo dhawaada shaqo aan idin kala hayn ku soo dhawaada dadka Soomaaliyeed dadkii u soo kacay oo dhalinyarada ahaa oo aqoon-yahanka ahaa oo la rabay dalkan inay ka saaraan culayska haysta dhibaato haday tahay mid amni haday tahay mid dhaqaale haday tahay mid ay tahay siyaasad dhaqaale iyo bulsho wixii dalkan dhibaato ka jira yaani dadka la rabaa inay u istaagaan waa idinka iyo kuwa kale oo idin la mid ama shaqaha hayeen ama yeesan hayn waxaan rabnaa dalkaani cidina idin kama leh shaqaalahan ayaa ku guuleystay ka mid noqoshada shaqaalaha guddiga la socodka dib u eegista dastuurka kadib imtixaan ay galeen dad soo codsaday maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho banaanbax looga soo horjeedo maleeshiyada argagixisada al-shabaab oo dhibaatooyin kala duwan ku haya shacabka magaalada Beled Xawo ayaa ka dhacay magaaladaasi iyadoo banaanbaxa ay ka qayb galeen maamulka degmada iyo boqolaal ka mid ah bulshada halkaasi ku nool warkan waxay noo soo diray wariyaheena Maxamed Macalin Aadan oo ku sugan magaalada Beled Xawo boqolaal shacab oo sameynaya banaanbax ayaa isugu soo baxay faras magaalada degmada Beled Xawo waxayna dibadbaxani uga soo horjeedeen kooxda al-shabaab oo ay sheegeen inay markaasi dhibaatooyin ku hayso shacabka degmada Beled Xawo iyo waliba deegaanada markaasi hoos yimaada gudoomiyaha maamulka degmada Beled Xawo Maxamuud Xayd Cusmaan iyo taliyaha nabad sugidda gobolka Gado Cali Xasan Deer ayaa halkaasi kula hadlay shacabkii ka soo qayb galay banaanbaxani waxaan u baahanahay marka in saacadkan yaqaala waqiiladan iyo kuwan ilaahay dadka dhaafiyo ilaahayna hanuuniyo waxay ku jiraan ilaahay ka saaro qulubtooda Allah ka waxaan idin sheegaynaa marka qolada sixir bararka ah oo dadka ku qaaleeyaysa ma la idinka yeelayo dadka la dushiisa ku faa'iideysa معاهدة لك شباب نبدأ احتاله نبدأ احتاله الشيء نبدأ احياله موضع هذا الله وطاول الله انه علينا يدك اسكداي قاعدين كان اسكداي قاتلين بدل اسكداي اذا بدراد يدك مساكين تودي سنة انا قاتلين اسكداي marka Soomaaliya ma go'aanka say haaway marka reebada hawo wada fiican iyo marka shaqo fiican ayuu maamulkiina u horseeday nidaamka dawliga ah iyo bilaabo adinkana inaad ku taageertaan maalinka waxyaa tilaabo bil qaado caqabado waa imaanaya waxa soo baxay Maxamed Macalin warbaahinta qaranka degmada Beled Xawo akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta ayaa waxa ay dhiirigelin u sameynaysaa qorayaasha da'da yar ee Soomaaliyeed si loo dhiirigeliyo korna loogu qaado kobcinta xirfadda qorayaasha Soomaaliyeed hadaba gudoomiyaha akademiyada fanka cilmiga iyo suugaanta Cabduqaadir Nuur Xuseen Maax ayaa arintaasi uga waramay telefishinka qaranka waxaana uu yiri haddaynu nahay maamulka akademiyada dhiirigelintani waxa daba socday la eegayaa waxa weeyaan marka dambe buugag tayale iyo qoraayaal tayale inay soo baxaan ujeedada wax yar bay ku bilowdaan hawl marka dambe way ballaartay dib bay marka hadda wax ka noqotaa waxaan is leeyahay ilaa 12 qoraa ayaa maanta meesha buugtooda ku soo bandhigay
12 qoraa waxa weeyaan buugaagta ay soo bandhigeen ama ay soo bandhigayaan waa buugaag kala aragtiyo duwan oo nin walba sidii uu islahaa ilaa buugga marka la qorayo baahina way keentaa bulshada ka dhex jirta jacaylka qoraagana wuu keenaa buugga in la qoro qoraaga laftiisaa wax jeclaada baahi bulshada dhex taalna way keentaa in la qoro marka dhammaantood waxaan is leeyahay midba waxa uu ka hadlayaan muhiimadiisa iyo ahmiyadiisa uu leeyahay laakiin su-aal waxaa ah maxaan maanta u baahana haddii buuggii jacaylkii qoraha ku jiro oo wixii maanta loo baahnaa mararka qaarkood uu ku jiro laakiin su-aal mar walba qofka qoraha inay hor taallo ay tahay waxay tahay maxaa loo baahan yahay maanta maxaa loo baahan yahay in wax laga qoro iyadoo wixii loo baahnaa ay muuqdaan ay yaalaan haddaad wax kale wax ka qorto waxaa weeye waqti badan baad meel kale oo aan wanaagsanayn baad gelisay waqti baa kaa lumay marka waxaa loo baahan yahay inaynu cudurka ama dawada bulshadeenna maanta u aragno sidii dhakhtarkii loo keenay ninka buka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad ku saabsanayd xuska dhalashada nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee kaasoo ay kasoo qayb galeen shacabka iyo culamaa udiinka ku nool magaalada gaalkacyo warkan waxaa halkaasi kasoo dirtay waryaheena safiya sheekh cali isku soo bax lagu weyneenay dhalashada nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa maanta lagu qabtay gaalkacyo munaasabada xuska dhalashada waxaa soo qaban qaabiyay culamaa udiinka ahl sunna wal jamaaca waxaana ka qayb gala boqolaal dadweyne ah mas'uuliyiinta maamulka degmada gaalkacyo kan gobolka mudug ayagoona socod ku soo maray wadooyinka waaweyn ee gaalkacyo waxayna qaadayeen qasaa'idooyin naba amaana qaar ka mid ah mashaaqida gobolka mudug ayaa isku soo baxa ka soo jeediyay mucjisaadkiisa hubanaha iyo taariikhdiisa oo kooban kahor wixii ka dhaca waxaa la yidhaahdaa irhaasaad baa la yidhaahdaa waxaa loogu gogol dhigayaa meeshaa nin boqorana rabbihi inuu ka soo socdo ayaa dadka la sii ogeysiinaya waa tii ka dhacday rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ay malaa'igtu hoosin jireen habeenkii uu rasuulku dhashay waxyaalihii dhacay weeye asnaamtii oo dhan baa sanka mudotoo dhacdhacday xayawaanaadkii dhammaaba waxay ku hadleen luqatul carabiya bay iskugu bishaareeyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tacdiimiyey soom ayuu ku tacdiimiyey maalinta uu dhashay soom ayuu ku tacdiimiyey waxaa laga yaabaa dadka gobolkood inay soomkii ku tacdiimiyaan qiradii ay ku tacdiimiyaan ijtimaacii masaajidda kulankoodii ay ku tacdiimiyaan inay macnaha ay waxa weeye salligii ay badiyaan degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre ayaa muslimiinta ugu hambaleeyay bilashada bisha mawlid oo uu dhashay nabigeena maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee waa maalintii labaad oo damaashaadkii iyo farxaddii mawlidii nebi aan ka qayb galayno runtii aad baan ugu faraxsannahay in diinteenna iyo nebigeenna la isxasuusiyo oo la weyneeyo marka ciddana dhahaysa nebiga la isma xasuusin karo ama maaragtay lama weynayn karo lagama yeelayo haddii la idmo waanu raacsannahay waanu ku faraxsannahay intii soo abaabashana ajar iyo xasanaad allah ka siiyo ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka mudug cabdirashiid xaashi cartan ayaa isku soo baxa lagu weyneynay dhalashada nabigeena maxamed ee maanta lagu qabta gaalkacyo ka hadlay safiyo sheekh cali warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo wararka dibadda haddii aanu eegnana daawadayaal dalalka Turkiga iyo Suudaan ayaa kala saxiixday heshiisyo iskaashi oo hor leh kuwaas oo ku saabsan dhinaca tamarta beeraha korontada xoolaha gaadiidka duulimaadka caafimaadka iyo waxbarashada heshiisyada ayaa waxaa magaalada Khartoum ku kala saxiixday madaxweyne ku-xigeenka dalka Turkiga iyo ra'iisul wasaaraha Suudaan waxaana la doonayaa in wax badan ay ka bedelaan heerka nololeed ee bulshada Suudaan labada dawladoodna ay faa'iido ka helaan
waxaa la sameynayaa guddi isku dhafa oo dardargelin ku sameynaya sidii mashaariicdaas loo fulin lahaa kuwaasoo si joogto ah uga shiraya howlqabadka la mudeeyey iyo farsamo ahaan sida mashaariicdan looga dhigi lahaa kuwo waxtar leh sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha waddanka Suudaan. labada dal ayaa sidoo kale kala saxiixday heshiis dhinaca militariga ah kaas oo Suudaan looga caawinayo horumarka habka difaaca. waxaa la rajeynayaa in uu kobco xiriirka ganacsiga ka dhexeeya Suudaan iyo Turkiga taasoo la doonayo 5 sano ee soo socota inuu gaaro ilaa 10 bilyan oo dollar sanadkiiba. diyaaradda calanka Turkiga ku duusha ee Turkish Airlines ayaa kordhinaysa duulimaadyada ay ku tagayso Suudaan, Khartoum iyo Port Sudan taasoo fududeynaysa isu socodka labada dal iyo ganacsigoodaba.